dhibaataa ka dhacday, dil baa ka dhacay, dhaawac baa ka dhacay, qasaara ka dhacay, ciddii geysatayna waxay ahaayeen reer Buuhoodle. reer Buuhoodle maxaad ka wadaa? waa dhul bahanta. xageese laga leeyahay gaadiidka iyo hubka halkaa ka tahay? saddexda gaari waxaa laga leeyahay sida la sheegay waxaa leh Cabdi Madoobe, ciidanka Cabdi Madoobe leh sida la xaqiijiyay ama dad xagga joogay soo sheegeen waxaa leh ciidanka Cabdi Madoobe lahaa saddexda gaari. anagu ka dignay meel yiraahdo meeshii loo oran jiray kalshaale waxa aastay xukuumadda. intii xukuumaddu aastay kadib intaaba iyaga digay waxba lagama qaban. annaga kaayagiina xukuumadda gacanteeda ku aastay cagaf ku gelisay. laakiin ma dambi baa inay deegaamada dadkaasi ay deegaan u deegaameeyaan maxaa ku jaban awal bas miyaanay ku dhaqanayn deegaanka? labadayada beelood ba horta marka hore meesha jooga meesha degan ragna filinooma joogo waxba beelooda waxba qarin maayo. waragii halka gooja cadii meesha la yiraahdo tigay labadayadaba wixii noolaayay ragnimo ku labadina beeloodba wixii ari waraabiski iyo midharkii la isla goomaha u dhaamiyeen iyo maatada iyo midna faada noo jooga qolada reer Buuhoodle waxaan leeyahay war ariga hayno waraabiyeen kuwaasi ragii raga haweenaga iska diree ee isku dilay ay gooja cadii joogaan ma idin la tahay inaynu ari waraabiska kala ceshano. cuudan le muraayada qabri hulul arabalambal balcalan le gandahar duguble intaaba anaga ka digna Buuhoodle. meesha dhul bahanta qoday waxay qodeen meesha la yiraahdo Gugan, waxay qodeen meesha la yiraahdo oo ay digeen meesha la yiraahdo Cumaraji, waxay digeen Sool joogto, waxay digeen Meegaagli, waxay digeen Guufe oo leeyahay Maroodi ka dhac, waxay digeen Goolle, waxay digeen Balanballe, waxay digeen Qaydar, waxay digeen Gocondhaale, waxay digeen meesha la yiraahdo Horyaal, waxay digeen Daaras meesha la yiraahdo Almeegaag oo ka tirsan degmada Qurlugud, waxay u dhaxaysaa Qurlugud Harfadhi Gocondhaale meesha la yiraahdo Qabri Hulul iyo Inaabti Doon. intaas oo magaalo u dhaxaysaa waa deegaan marka hore xoolo daaqeen ah oo xoolo daaqeenka ah. marka hore halkan waxaan uga dirayaa dhammaan dadkii halka shaqaaqadu ku dhex martay baaq nabadeed baan uga dirayaa. waxaan leeyahay hal la joojiyo xabadda wixii dhintay waan uga tacsiideynaya qoys. deegaankaasi sidaan kuu sheegay beelood waa deegaan xoolo daaqeen ah wuxuu u dhaxeeyaa beelaha. waxaa jira deegaan noo dhaxeeya annaga iyo beeshan kale aan walaalaanahay. annagu degmo ahaan waxaanu ka soo jeednaa reer Buuhoodle. gobolka iyagu waa Togdheer, degmada iyadu waa Buuhoodle. waxaan nahay degmada Buuhoodle waxaan naga dhaxeeyay deegaanka qaybaan ka degnaa. waxaanu markaa iminka tira ahaan la sheego degmo ahaan inta sanaaduuqda aanu dhigano marka laga bilaabo Qurlugud, Cuudanle, Muraayada, Qabri Hulul, Arabalambal, Balcalan le Gandahar Duguble intaaba anaga ka digna Buuhoodle. inta markaan ka digno waa meel aanu deegaankeeda anagu waxaan dignaa galbeedka Buuhoodle ayaan dignaa. iyaguna waxay digaan saddexda daamood kale digaan saddexda jihe kale ayay digaan. dhulka anaga dhaxeeyay marka hore Buuhoodle iyo Qurlugud wax magaalo ay waxa u dhaxayn jirtay xirfad meel dhaama oo laga cabo oo sameeyay Ilaa Saleebaan Aadan Colaad Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. inta kale waxay noo ahayd xoolo daaqeen. waxay qodeen oo ay qodeen dhowr iyo 20 magaalo yaa qoday. waxa qoday deegaanka reer Buuhoodle. dhowr iyo 20 magaalo meesha la yiraahdo Hagugani oo ay digeen meesha la yiraahdo Cumaraji, waxay digeen Sool joogto, waxay digeen Meegaagli, waxay digeen Guufe oo leeyahay Maroodi ka dhac, waxay digeen Goolle, waxay digeen Balanballe, waxay digeen Qaydar, waxay digeen Gocondhaale, waxay digeen meesha la yiraahdo Horyaal, waxay digeen Daaras iyo tuulo yar oo iyadna ku taala meesha la yiraahdo Kootarabaanka oo mooy tuulo khayr iyo wax la yiraahdo intaaba iyaga digay. waxaanu ka dignay tuulo qura oo la yiraahdo waxaanu anagu ka dignay meel la yiraahdo meeshii loo oran jiray kalshaale waxa aastay xukuumadda. intii xukuumaddu aastay kadib intaaba iyaga digay waxba lagama qaban. annaga kaayagiina xukuumadda gacanteeda ku aastay cagaf ku gelisay. laakiin ma dambi baa inay deegaamada dadkaasi ay deegaan u deegaameeyaan maxaa ku jaban awal bas miyaanay ku dhaqanayn deegaanka? deegaanka marka hore markuu laba beelood dhexdood yahay
حول الداقين يهي اسفهن لإسلا فهمه وعمل له وددقه عمل لك لدقابة لقدق كرا انت هذا وحا قعنتها هي وبيشان غير غر لقدقان كوا قعنتها هي حكومة هذا من كذا عدد نيمك meel yaa cilaamacaar ayaa waxa laga qoday barkada markii la yiri halka laga qoday anigu waan ka soo maqnaa muddo dheer baan ka soo maqnaa barkada markii halka laga qoday qolada kalena waxay qoday dhaalmeygaad kumay duulin iyagu cilaamacaar halkii ay ka qoteen qolada kale kumay duulin laakiin iyagu way soo duuleen dhibaata ka dhacday dil baa ka dhacay dhaawac baa ka dhacay qasaara ka dhacay cidii geysatayna waxay ahaayeen reer Buuhoodle maxaad ka wadaa waa dhul bahanta haddaan ku dhaha reer Buuhoodle waan nahay waa imika markaan carabka ku dhufto meesha Buuhoodle loo jiri waxay raacday in kasta magac kale ula baxeen dhulbaanta ula baxda dhulbaanta la yiraahdaa annaguna waxna galbeedka Buuhoodle iyaguna waa bariga ka xagga shinin baa ka dhaawacmay beesha shee xaggana labadina way dhaawacantay nina uu dhintay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo marka dagaalku ilaa goormuu socday maalin buu dhacay maalin gelinkeedii dambu dhacay gobolkaana uu kala dhacay sida la ii sheegay marka imika ma ciidamada kala dhex fadhiya xaaladii jawgu sidee weeyaan xalsi maxaa ilaa imika la hayaa waxaan ka warayaa burco waxa ka baxay odayaal cuqaal waxgarad isabaabulay xukuumaduna aad bay uga shaqaysay arrinta in la joojiyo oo kale wasiirka arrimaha gudaha buu daneynaya arrinta in la baqtiyo iyo madaxweynuhuba iyo gudoomiyaha guurtiduba Salmaan Maxamuud Aadan saddexduba aad bay uga hawl galeen arrinta in la baqtiyo oo halka lagu joojiyo sida aan ka warhayo qoladii reer Buuhoodle way soo baxeen uqaashoodii iyo culimadoodii ciidankoodii way u yimaadeen way la hadleen way ballameen qoladan kale ee reer Qurlugudna odayaashoodii way ku maqayeen iyagana oo way gaadheen odayaasha aan ku sheegay qaarna Buuhoodle ka soo baxeen ee fadhi yimaadeen qaarna burco ka baxeen Qurlugud tageen waxay ku ballansan yihiin dhawaan inay isu yimaadaan ilaa berrito kulmaan ciidamadana la kala qaado saasay ku ballansan yihiin insha Allah hawshana sida lagu soo afjaro lala hadlo qolo waliba qoladeedii la hadashay ayaan wax weerar ma qaadi kartaan way yeelayaan sidaasii ku digtay qoladaasna qoladeedii way la hadashay qoladeeda imika joogta uqaasha joogta Qurlugudna way la hadleen qoladii kale iyo kuwa burca joogaaba waa la joojiyay arrintaas oo xabad joojin horta qolo waliba haduulin baa leeyahay halkaaga difaac horta ka gal araha bulshada waxa aad loogu faafinayay in dagaalka marka laga tago dadka deegaanka dagaalamaya ay goobta yimaadeen ciidamo technika iyo hub culus oo meelo kale ka yimi oo aan deegaanka ahayn amuurtaasi maxaa maxaan si runahay waxa la ii sheegay waan ka soo maqnaa laakiin waxa la ii sheegay in ciidamo ay yimaadeen gaadiid gaashaaman oo technika ay meesha inay yimaadeen goor gaaban waliba casarka dibadiisii kana dagaal galeen saddex gaari baa la ii sheegay halkee bay ka yimaadeen technikadaasi xageese laga leeyahay gaadiidka iyo hubka halka ka saddexda gaari waxa laga leeyahay sida la ii sheegay waxa leh Cabdi Madoobi ciidanka Cabdi Madoobe leh sida la xaqiijiyay ama dad xagga jooga ay soo sheegeen waxa leh ciidanka Cabdi Madoobe laha saddexda gaari yaa imika maxaa talaabo cad marka laga tago deegaanka dawladdu maxay talaabo cad qaaday oo aan la wadaagaysa marka hore dawladdu iyada hadii ay leedahay waxaanu ka codsanaynaa arrinta inay danayso labada ciidan sidii labada beelood ba horta marka hore ee meesha jooga ee meesha degani rag nafliinimo jooga waxba beelood waxba qarin maayo waragii halka gooja cad meesha la yiraahdo tigay labadayadaba wixii noolaayay ragnimo ku labada beeloodba wixii ari waraabiski iyo midharkii la isla goomaha u dhaamiyeen iyo maatada iyo mid dhaafaaba noo jooga qolada reer Buuhoodle waxaan leeyahay war ariga inoo waraabiyeen kuwaasi ragii rag ahaa waynaga iska diree ee isku dilay ay gooja cad joogaani ma idinla tahay inaynu ari waraabiska kala ceshano intaasaan leeyahay waa la oran karaa waayo cidda bilowday marka hore fal dambiyeedkan ee bilowday qodaalka xilligan iminkii lagu jiray xasaasiga ayaa wado arrin siyaasadaysan oo weyn baa ka dambaysan ku tuunsanay oo dhinaca reer Buuhoodle qolada dhulbaante arrin siyaasadaysan inay ku jirto ayaan ku tuunsanay waayo iyaga bilaabay qodaalka iminka iyadoo faraha la dhowrayo cidda iminka bilowday waa iyaga gaadiidkooda ma dhex marayay cidi waxba ma yeelayn xoolahooda soo baxsanayay waxba cidi ma yeelayn ganacsigooda soconayay cidi waxba ma yeelayn marka iyaga bilaabay dhul qodka farafaraynta iyaga bilaabay cilaamacaar inay qodaan qolada kalena way ku dayatay iyaguna dhaalmiigaag bay qodeen weliba iyaga lama weerarin iyagii baa weerar soo qaaday laba jeer bay weerar soo qaadeen weliba waxaan u leeyahay oo u sheegayaa qolada reer dhulbaante aan reer Buuhoodle ragnooma joogo labadeeda qoloba waxba qarin maayo xoogaa ariya waraabiya noo joogay
انت مينو كلا كحيسنا مسا انت انا وين اسكو دوبنا anigu saasaan leh. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.